رواد الإسلام يا دمانتين dadka YouTube-ka ku xirano video yar baan duubayaa waxaan dhageystay islaan joogta umaleyn Hargeysa ay joogto wiilkeeda ayaa iyo caruurteeda ayaa TikTok ka dacweynaya marka video gogoos ayaan dhageystay markuu live ku socday maana wada dhageysanin intii gogooska aragtadeeda ayaan rabaa inaan wax ka iraahdo islaanta magaceeda ma aqaan iga raalahaada ma xasuusto magaceeda islaanta dhowr sano uma aqaan sanadkii hore inayd baa u maleynaya ayaan video ay leedahay wuxuu soo galay baraha bulshada markaasna waxa dhacday in waxay ka cabanaysay nin weydiistay mag wiilal ay caruur ay korsatay oo aabood u dhintay marka brambur bay tirisay dadka marka waxay ku yeesheen saameyn hadalkeedii iyo cabashadeedii dadkan waxba weydiisan dadkii baa isgarashadii ay isgarteen ayay waxay siiyeen lacag iskugu aruuriyeen lacagtii waxay ku gadatay meel boos ah gurina midhaa way ka dhisatay saa hadalkeeda aan ka maqlay baloor bay dhaaray waqooyigu marka meel baloor bay gadatay baloor waxaan u malaynaya waa boos marka ma garanay mise waa boos waa dhul guri wata saasaan u malaynaya inuu yahay aduu marka waxaa dhacday wiilkeedii baa cabanayay ee dhashay iyo gabar dadka cabanaya markaa cabashadoodii waxay sheegayaan aan dhageystay kama cabanayaan inay markay ilmaha ahaayeen la dayacay wiilku wuxuu ka cabanayaa guriga ay hooyadan ay dhisatay oo dadku u dhiseen ayuu wuxuu shaka wuxuu ka qabaa caruur ay isku aabe aysan ahayn oo laakiin isku hooyo ay yihiin inay ku qorto islaantu oo geerideeda ka bacdi ay caruurta kaligeed yeeshaan tuhun noocaasuu qabaa marka islaantii oon dhiman buu dhaxalkeeda kasii shakiyey si kale haddaan u dhigno marka wuxuu go-aan goostay hooyadii meeshuu weydiin lahay dadka tolka ah inuu dadkii oo dhan uu ku ceebeeyo oo islaantii uu ka cabto oo yuuso wuxuu isku arkaa inuu ilmo yari yahay waa nin weynaaday oo soddonkii dhaafayna qof weyn waaye gabadhuna waa naag weyn oo la qabo iyo nin reer leh ayaa hooyadoo dacweynaya waxayna ku dacweynayaan inay gurigii yarkaa dadku u dhisay ka qaataan hooyada hadalladeedaan dhegeysto waa naag aada u degan oo dumarka aan ahayn dhaha waan ku dhalay waan ku yeelo naas baan ku dhuujiye aan ahaynoo si tartiiba u hadlayso qof muumina bay u eg tahay oo miskiinada waxay kasoo sheekeysay hooyadu waxay kasoo sheekeysay nimanka dacweynaya hooyadood in caruurtan aabahood miyaa mise waa nin kale inuu markay uurka lahayd qayb ka mida uu jiidi jiray oo uu dili jiray oo markaa caruurtuna inuu aabahood korsaday sababtiis uu ka eriyay hooyadood wuuna u diiday aabahoodii hooyadood ka qaatay ma dacweynayaan iyo in hooyadoodii ayaga la kala kaxeeyey islaantii yareed ee la eriyanayo aabahood jiidanayay markay dhalaysay ayay hadda ayagu facebooka waxay ku jiidanayaan tiktoka cibaaro weeye alla adduunka maxaan yaab joognay rabbiyo cajiib ilaahay wadaa weyn marka waxaa ceeb ah oo yaab leh oo dhaqanka Soomaaliga aan ku arkay dad waaweyn nin weyn oo hooyada guriga joogto oo markii la koriyo ka bacdi meeshii shaqo raadsan lahayd ama nolol raadsan lahayd wuxuu rabaa inuu guriga joogo oo islaantii odagii koriyay ay sii biilaan gurigu imaanaya macawis dheer buu jiitaa dharka loo dhaqa inanka baa la leeyahay waa nin weyn oo 30 jir ah oo la rabay reerka inuu ka dheeraado oo hadduu wax ka caawiyo laakiin asiga baa wuxuu yahay qof la korinayo 30 jir la korinayo hadda ninka wuxuu islaanta ku haystaa inay asaga koriso oo naagtuusa uu fuulayo koriso oo naagtan kale uu soo kaxaysto oo ay leedahay waa curadayda waxay ku haysataa hooyada in ayadii ilmaheedaba la koriyo waa naag nin qaba oo meel degan marka waxay leedahay nagalama wara qabo hooyada iyo anaga iskuma fiicna hooyada anaga dad isku fiicna maxay ka qaban karaan baraha bulshada maxay ka qaban karaan hooyada adoo intaas waxa ugu fiicnaan weysay waa wax u baahan in adigu dib iskugu saxdin adiga hooyada wada hadashaan dad iinan aqoon oo waxba idin ka dhaxayn oo internetka ku jira baa hooyadin uga cabanaysaan waa hooyadin uu aabihiin soo xumeeyey markaa yaryareedeen nin raba inuu islaantii sugula inay dhimato miskiinadii oo ilaahay oofsado malag loo soo diro oo gurigii hadda ay deganeed rababa inuu dego oo 30 jira oo le ilmaha kale aad iga jeceshahay ilmaha maxaa jecel may kala korin buu u baahan way ka yaryaryihiin waa walaalaha ma in la korinayabaad u aragtaa jacayl waxa harta in lagu daro la koriyo oo sabi laga dhigo oo adigoo reer leh islaantu miskiinta ku kala hado
ayadii baa ilka lahayn ilkii baa wixii u gashatay aysan hayn war isku xishooda war hoos isku fiiriya war waa ceeb waxaa samaynaysaan war nimankiina waaweyn ee raba islaamaha hooyadiina markay gaboobaan inay adinka naagihiina biilaan oo adinka idin biilaan oo luusuriinta noqdeen oo dumarku idiin shaqaynayaan waxaan waa ceeb waa dhaqan xun oo foolxumo ah war shaqaysta balaa idinku dhacday shaqaysta maxaa hooyada haylaha u haysataa miskiinada ah oo mar boqol oo ugu soo koraysaa oo walaashaa ugu soo kaxaysatay oo la yuusaysaa 20 jir baa tahay maad ama 30 baa jirtaa ma shaqaysatid maxaa islaanta miskiinada ku daba taagay adaa ku xoog badan adaa dhalinyar ayadaa si rafaada ku soo guurkii aabaha baa soo rafaadiyay aabaha baa jiiday adaa hadda waxa ku jiidaysaa Facebook iyo TikTok baa hooyada saa u walfinaysaa war isku xishood ilaahay si xun ku dilay isku xishood qurunyahow han aan xishoonaynin qof aan hadlayno miskiinado ayadii baa war hooyay ma abtiyaashiin baa jooga adeeradiin baa jooga ehel baan leen waa isla orunteed war haddaa familku wax ka timin islaamaha iyo ehelka iyo dadka ula noqo oo hooyay waxaasan tabanayaa dheh islaantu ma dhiman way nooshahay gurigeedana degi maysid ilaahayna cimriga ha u dheereeyo hooyadaana iska daa waxaa laga yaabaa adiga cuqubad inay kugu dhacdo oo aad ka hor dhimatidba gurigaa is leedahay may dhimato aad kala wareegtid markaas islaanta intay waraaqihiisa u qaado guriga bay dadkii hor keentay markaasay leedahay anuu igu qoran yahay guriga anuu igu qoran yahay caddayn bay dadka u keentay allah soomaalida meelay marayaan waa meel cajiib ah waa meel cajiiba runtii haddii somaliland joogaan ninka iyo naagto indhaha xirneed oo afka xirneed oo argixisada u ekeed waxay u baahan yihiin in xabsigii la geeyo oo la xiro oo dhaqan celin lagu sameeyo dad fahmi waaye inay koreen waad korteen qaangaar baad noqoteen soonkii salaada idinku leeyahay waad galmootaan caruur baad dhashaan xoog baad leedihiin shaqaysta islaanta aad haylaha haysataan iska daaya hooyadiin xiriiriya oo hooya dhaha haddaad ka weysaana maxaa la samayn karaa hadday idin nacdo yaa qasbi kara oo dhihi kara jeclaaw qof weyn oo aad dhashay oo markaa adduun keentay haddii hooyadu way ku nici kartaa of course daa qof xun tahay oo raxmada aad u lahayn wax ku dhihi kartaa war iga tag maandhow ilmaygaan kaa korsade oy kaa dareemayso xabsi ay kaa qabto maxaa marka u eryanaysaa miskiinadda ma iska daysaan miskiinadda aroortii ka laada ee ayadaba gubatay ee rafaaday ee 13 ilmood jirkeeda ay ka soo baxeen oo lafihii daaleen oo burbureen oo silca ku nool oo dadkii kaloo Soomaaliyeed intay iskarteen ay guri u dhiseen guriga baa rabtay inaad la gashin war qofku masiibaysana gurigii yaraa baa rabtay inaad la digtid oo la siiyey oo dadku u garteen markaasaad leedahay been saad u tahay qof yaab leh markaasaad leedahay hooyanimaa rabaa hooyanimadaa rabtay maxay tahay ma naaskay kuu dhigaysaa maxaa dhahnaa kaala naaska u dhiginanka miyaa dhahnaa musoddon jir baa waxaa dhahnaa duqda miskiinta ahayd naaska u dhig maxay kugu samaysaa maxaan ku dhahnaa islaantan miskiinada walaal anu waan yaabay aad baan idin dhibsada runtii war hooyadiin meel dama ha usoo fuurinina war isku xishooda oo yaxyaxa oo waalidka miskiinka iska daaya oo iimaan la'aantii iska daaya islaantii oo dhiman aragtina u dishid oo guri qaadatid war waxaanoo kale dadnimo maahanoo soomaalinimo maahane war shaqayso nin baa tahay shaqayso naagna naag baa tahay shaqayso afka intaa soo duubatay adoo hooyada curad oo gabar naagnimada og iyo dayaca Soomaaliya ka jira in dumarka la dhibaateeyo la bahdilo raggu ay wax xaquuq ay lahayn hooyada inaad u soo raacdin nin uskaga ma ahayn awlaala ku sheeganaysid ceeb bay kugu tahay waxa dumarnimadii iyo naagnimadii baa meel uga dhacday isku xishood oo hooyada raali gelisii public baad ka jiidateen inaad beenaalayaal tihiin oo aad iimaanka idinka tagay dadka u sheega oo hooyadii raali geliyo jilbaha ka dhunkada oo u fariista oo ka ducaysta wallahi hadday miskiinta ay habaarto oo habaaran kaga dhimato waligii in meel fiican harsan doon ilaahay baa igu og kommentiyada akhrinaya islaanta oo cabanaysa dadku waxay soo qorayeen argagax baa igu dhacay mid baa wuxuu yiri haddii aniga hooyaday ciyaal kale iga jeclaan lahaa oo ninka u dhashay waan dili lahaa islaanta guri baan ku gubi lahaa manaag baa mise waa nin qof baa soo qoray kuwa kale u sii rayaaqaya waalidku waaba la dilaaba waxaan arki jiray waalidku aad loo jecel yahay dhaqanka hadda waa dad waxaa soo baxay raba inay waalidkoo dilaan waa cajiib waalidiin qaldan way jiraan laakiin ma xaq baa ugu leedahay markaa kortay inaa waalidka dishaan hal marna caruurta may sheegan markaan yaryareen waxaan weyne hooyanimo waalidnimo waana la dayac hal marna may dhihin
annagaa iskorinay idinku ismiina korin aabihiin baa hooyadin inka reebtay oo ayadiin baa idin korsatay walaashaha waa tila ayayaana korisay haddii hooy islaantii laga eriyo oo aabbaha uu furay oo dumarku in ilmaha soo ceshan karo oo ogtihiin oo weliba adigo naagaa ogtahay hadduu nin kufrin ilmaha kaa qaadanayo oo waddanka xeer uuna ka jirin oo sharci ka jirin oo dumarka waxba ilmaha la siin ninku markuu ilmaha ka qaadanayo naa maxaa hooyada u dhaleecaynaysaa inkaar kugu dhacday inkaar qabtooy maxaa hooyada u dhaleecaynaysaa maxaa ka rabtaa hooyada miskiinada ah bismillaahi raxmaani raxiim weligay kuwaasoo kantee meediyaha joogay wixii ugu yaabka badnaa buu ahaa 3 jir hooyadiis raba iyadoo dhiman inuu guriga qaato bismillaahi raxmaani raxiim waxaa arkaysaa guriyeyna shaqaysan waartu ka dhinto caruuro isku dila waa guriyeyna shaqaysan hooyadu waxay samayn kartaa dad kale siin kartaa guriga ilaa iyadaa la siiyey madanka xaq ugu leh inaad hadday dhimato xitaa ku noolaataan yaa xaqa idii siiya horta war shaqaysta waxaa meelaa shaqaysteen dega oo naagihiina dejiya gabadhaydibaa isbitaal ku jirtay gabadhaydibaa saas naagtaad fuushay mayadaa arta inay isbitaalka ka bixiso markaa qooqaysa adaa la rabaa inaad ilma naagtaad iyo waxaa ka dhalaysa aad isbitaal geysid haye maxay ku samaysaa naag weyn adigu aa fuushay oo ilma aabbo u tahay dhalaysa oo xanuunsan soo adigu maaha ninka la rabo inuu xanaaneyo mayadaa arta inay kuu xanaanayso way ku dhasho adduunka ku keentay way ku koriso aabbaa ku koriyey saa waxaa rabtaa naagta iyo ilmaha dhalaysa inay koriso war caqliga nuucaana xagee buu ka yimid oo ilmihiina iyo naagihiina la korinayo war shaqaysta rag baa tihiine xamaasho dhagaxa jabsada beeraha qota kalluunka jabsada soo kalluumaysta oo intiina guursan ka hor ilmaha iyo guriga meesha degsanaysaan samaysta oo waddanku inuu adag yahay xaaladiisa oo ogtihiina si doqmanina ha u dhaqmina caqliga inuu ha shaqeeyo dhammaantiin dhallinyaroy ama waalidka intaa qabataan usoo fariista tiktok waxa dhahdaan naagtaydii buu gabadhaydii iyo naagtaydii baa wax la siin waaye gabadhaada naagta wax la siin maayo naagtaadana ha shaqaysato aadna shaqayso 40 jeer aa tihiin iyo 50 jiree iyo 30 jiree dad baa tihiin noole oo ilaahay naf geliyey war ceeb weeye waxaasoo kalaa waa ceeb hadbaa idii salaamaya dhammaantiin